wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland ayaa qoraal ay soo saartay gelinkii hore ee maanta ku sheegtay in gebi ahaanba la joojiyay xaflad bandhig faneed ah oo magaalada Hargeysa ay ku qabanayso fanaanada la yiraahdo King Jamac oo kamid ah fanaaniinta qurba jooga. qoraalkan uu ku saxiixan yahay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Albani soona baxday gelinkii hore ee maanta waxa lagu sheegay in bandhig faneedkan loo haysanin ogolaansho laga helay guddida awoodda bixinta ruqsadaha bandhig faneedyada sida lagu cadeeyay xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud xeer lambar 2012 sida daraadeedna aan bandhigaasi King Jamac la qaban karin maadaama aan ruqsad loo haysanin. haddaba intaynaan u gelin halka ay ku dambeysay xaaladda bandhig faneedkaasi muxuu yahay xeerkan ay adeegsatay wasaaradda diinta iyo awqaaftu oo ay dadweynuhu arag inta badan iyadoo la adeegsanayo xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud wasiirku uu adeegsaday joojinta bandhig faneedka King Jamac waxa qodobkiisa 22aad lagu cadeeyay in fagaare lagu soo bandhigi karin bandhig masraxiyad ama daawasho filim aan fasax loo haysan si waafaqsan xeerkani. sidoo kale qodobka 23aad ee xeerkan waxa lagu qeexay dhismaha guddida ruqsadaha bandhig faneedyada waxayna ka kooban yihiin 7 xubnood oo soo dhisayo wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta kadib marka uu la tashado wasiirka arrimaha gudaha sida ku cad farqada koowaad ee qodobkani iyadoo xubnaha guddidana laga soo magacaabayo wasaaradaha warfaafinta iyo dhaqanka arrimaha gudaha diinta iyo awqaafta waxbarashada iyo 2 xubnood oo dhaqan yaqaan oo laga soo xulayo dadweynaha reer Somaliland. farqadaha 3, 4, 5 iyo 6 ee qodobka 23aad ayaa iyaguna u dhigan sida tan: guddigu wuxuu joojin karaa bandhig masraxiyeed daawasho filin sababo la xiriira xasiloonida guud anshaxa dhaqanka iyo diinta. guddidu waxay go'aankooda qoraal ku sababaysan u gudbinayaan dhinaca ay khusayso iyadoo nuqullo kala duwan u diraya guddida nabadgelyada iyo gudoomiyaasha gobolada. guddigu waxa kaloo ay tilmaami kartaa in qaar ka mid ah filimada ama bandhig masraxiyeedyada aan loo ogolaan karin inay daawadaan ciidadoodu ka yar tahay 15 sano. xaaladahaasi oo kale waa in maareeyaha bandhig masraxiyeedku ama filim waduhu uu sheegaa mamnuucidaasi isagoo ku muujinaya xayeysiisyada iyo qoraalada waana in si adag loo hirgeliyo. guddiga awoodaha qodobkani siiyay waxa uu u wakiilan karaa gudoomiyaasha gobolada. markii uu soo baxay amarka wasaaradda diinta iyo awqaaftu waxay fanaanadu guddiga ruqsadaha bandhig faneedyada u doonatay warqadda ogolaanshaha iyagoo ugu dambeyntiina wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelintu ogolaatay in bandhig faneedka King Jamac uu caawa ku qabsoomo sidii qorshe uu ahaa maadaama ay soo martay nidaamkii sharciga ahaa ee lagu xusay xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud xeer lambar 2012 Xamse Geelle, telefishinka Saab, Hargeysa.